meediyaha waa mahadsantihiin tallaalkan waqti badan laga soo shaqeeyay waa la soo xaqiijiyay wadamada ma joojinin Yurub intooda badan ma joojinin hakaday geliyeen hase yeeshee waxay ahayd looto qaas oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo ma aha in la diiday laakiin baaritaan maadaama ay dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhiigiyo xinjiroobay waxay ahayd haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinaya tallaalka oo ka shaqeynayo WHO ka helayay go aheadka waa la fariistay waxaa la yiri calaamadaha dadkaas u dhifteen looma xiriirin karo AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaana loo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalay timid waadna u jeedaan inaan isku durno waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinno waxaanan safe ahaan idin horseedayno qof walba nafta waa jecel waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino in bulshada ilaahay ka sokow dadaalkana la faray in tallaalka kaliya lagu ekaanin afka la xirto la kala dheeraado gacmaha la dhaqdo la is ilaaliyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo dadka cudurrada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo taxadarka in la isku wada daro si aan u badbaadno ilaahay hana wada badbaadiyo madaxweynaha waa bilaabayay waana arki doontiin sawiradiisa waxaa lagu talaalaya xafiiskiisa dadaa loo diray intaanan annaga gelin xaafadda ee meesha la isku talaalayo wasiir waxaa la soo wariyay in dadka qaar ama qofka marka uu bilaabo oo kale la duro inuu wareerayo labalabana ay dareemayaan taas maxaa ka jira hadii hadda maxaa dareemaysaa noo sheego wax zaa'id oo aan dareemayo ma jirto aan ka ahayn cirbadda meeshii dabcan lagu duray marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadeenna ay qaadato aan ku badbaadno waxaan nahay dad waddan iska tabar yar systemka nidaamkiisa caafimaad oo runtii iska hooseeya kaalmo badan u baahan kan waa ka hortagga iyo daryeelidda dadka Soomaaliyeed marka tallaalka waa qaadanaynaa insha Allah ilaahay waa nagu wada badbaadinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh